Assalaamu calaykum. Waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu muhiimsan ee qofku uu ku gaari karo hadafkiisii nolosha, kow waxaa ka ah inuu joogteeyo wuxuu markaas hadaf ka dhigtay. Wax kasta aad doonayso in aad guul ka gaartid, waxa ay kaaga baahan tahay in aad joogteyso oo aad mar walba gacanta ku haysid. Tusaale ahaan, qofka maanta shahaado jaamacadeed qaatay wuxuu halkaas ku gaaray waa joogteyntii uu joogteeyey aadidda fasalka, dhageysiga macalinka, diyaarinta casharada. Inta badan waxaa lagu bilaabaa fasalka arday fara badan. Tusaale ahaan, 200 oo arday ayaad soo wada bilaabeysaan. Marka la qalin jibinayo waxaad ku soo hareysaan oo keliya 10 qof ama ugu badnaan 30 qof. Qofba meel ayuu ku soo harayay, mid maalin buu siibanayay. Tan marag baa ka tihiin dhammaantiina qof walba oo iskuul dhigtay ama jaamacad wax ka bartay. Marka labada qof wax isdhaafinaya waa joogteyntaasi. Joogteyn aad la timaado ayaa maalin waliba waxay ku sii dhaweynaysaa yoolka aad hiigsanayso. Dadaalkaaga haba yaraade hadduu doono, waxaad heli doontaa natiijo ku farxad gelisa. Dadka marka ay wax cusub bilaabayaan waxa ay hayaan tamar badan, firfircooni dheeraada iyo xiise joogto ah. Markase hawsha la galo, hoos buu u dhacayaa wax walba awood ahaa, doonistii iyo qabashadii waxay aad xiiseynaysay. Halkaas baa dad badan ay ka quustaan oo ay faraha kala baxaan hadafkoodii ay lahaayeen. Han kasta aad leedahay marka aad joogteyso wuxuu ku gaarsiin karaa guul la taabto ama yoolkii aad lahayd. Joogteynta ayaa kaa caawinaysa in aad arrimaha si fudud u qabato. Waa habka. Tusaale ahaan, salaada 5 salaadood haddii aad joogteyso, marka dambe waxay ka mid noqonaysaa salaada waxyaabaha aadan marnaba ka tegi karin. Haddii aad ka tagtana ay culaysku aad dareemi doontid iyo murugo. Marka joogteyntu waxay ku sii jiidaysaa ama ku dhaweynaysaa inaad gaartid guul macno leh. Dadka kugu xeeran ama kugu dhow waxay u diraysaa fariin adag oo ah inaad guushaadii mar walba aad maalinba qayb ka xaqiijinaysid. Markasta aad joogteyso tallaabada aad qaadayso dhanka riyadaada, waad gaaraysaa yoolka aad leedahay. Waa inaad rumaysaa riyadaada, joogteysaana. Waxaa lid ku ah ilowshaha inaad joogteysid, waxaa lid ku ah caajiska, waxaa lid ku ah mashquulka, balse aadamuhu waa ilowsho badan yahay. Marka si aad u joogteyso, waxaad samaysaa qorshe qoran oo diyaarsan oo aad ka mid dhigatid jadwal maalmeedkaaga aad qaban lahayd, sida salaadaha, cibaadada kale, soonka oo kale. Sida jadwalka Ilaahay uu sameeyo kale jadwal ugu samayso waxyaabaha hadafkaaga koowaad ah.